ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 12 bishii Abriil sanadkii 1960 kaas oo lagu aasaasay ciidan ka koobnaa 6 xurimood waxaana ciidankaasi lagu magacaabi jiray Cali Boobaye. ciidankaasi ayaa tiradiisu waxa ay la ekeed 2,000 oo askari waxaana laga soo kala xulay 6 gobol oo ka tirsanaa gobolada koonfureed ee gumeystihii Talyaaniga uu gumeysan jiray. degmo kasta waxaa laga soo xulay xilligaasi 50 askari oo tababarka ama kooriska ciidanka ku qaata xirada Botico oo markii dambe loo bixiyay dugsiga tababarka ciidanka ee Xalane. dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ahaa intii u dhaxaysay sanadihii 1969 ilaa 1990 oo ah xilligii dowladii militariga ay gacanta ku haysay hoggaanka talada dalka Soomaaliya. xilligaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa xilligii ugu dhismaha iyo tababarka badnaa waxaana la ballaariyay dhismihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana la dhisay ciidanka lugta iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka difaaca cirka oo markii hore ahaa horimo gaar ah sidoo kale waxaa la ballaariyay qaybihiisa gobolada dalka kuwa oo ay xarumo kala duwan ay ku lahaayeen magaalooyinka Muqdisho, Dhuusamareeb, Hargeysa, Burco, Baydhabo iyo Kismaayo. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilligii dowladii militariga wuxuu gaaray xagga dhismaha iyo farsamada heer aad u sareeya wuxuuna ka qayb qaatay dagaalo iyo howlo nabad ilaalin ah oo nabadgelyada loogu soo celinayay dalal ka tirsan qaaradda Afrika taas oo uu ku kasbaday in loogu yeero ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed libaaxyadii Afrika. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intaasi wixii ka dambeeyay waxa uu gaaray in uu gaamuro oo xuduudiisa lagu tilmaamay xilligaasi in uu ahaa kan ugu awoodda badan qaaradda Afrika balse waxa uu qayb ka ahaa burburkii dalka soo gaaray sanadkii 1991 waxaana hadda lagu jiraa xilligii ugu fiicnaa oo uu ka soo kabanayo burburkaasi waxaana socdo dadaalo dib loogu dhisayo awoodda iyo xooggii ciidanka qalabka sida. isku dhafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xoojinaya guulihii laga gaaray isku dhafidda ciidamada booliiska iyo nabad sugidda. haddaba dadaalada socda waxaa ka mid ah in dhowaan dowladda Uganda oo ka mid ah dalalka taageerada dhanka tababarka ciidanka u fidiya ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. sidaasi awgeed ayaa xirada tababarka ciidanka ee Kamamba lagu qabtay munaasabad ballaaran oo tababar loogu soo xirayay Leyli Sarkaal oo muddo 1 sano iyo bar tababar uga socday dalka Uganda. waxaana munaasabada tababarka loogu soo xirayay Leyli saraakiisha goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Uganda, taliyaha ciidanka Uganda, abaanduulaha ciidanka lugta ee dowladda Soomaaliya, isku dubaha tababarka iyo isdhexgalka ee xafiiska madaxweynaha, sihayaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda, diblomaasiyiin, gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata halkaasi iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa markii uu soo galayay goobta xafladda salaan sharaf waxa uu ka qaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Leyli saraakiisha tababarka loogu soo xirayay waxaana uu sheegay in askarta ay aad u diyaarsan yihiin. sidoo kale Leyli saraakiisha ciidanka ee tababarka u soo ilaaday ayaa goobta lagu dheeriyay. sidoo kale madaxweyne Museveni ayaa abaalmarino guddoonsiiyay saraakiisha kaalmaha hore ka galay muddadii uu tababarka socday
iyadoona kuwa ka socda dowladda Soomaaliya uu qayb ka ahaa dadkii abaalmarinta la guddoonsiiyey intii ay socotay munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa khudbad ka jeediyey goobta madaxweynaha dalka Uganda isagoona saraakiisha ku booriyey in ay mar walba dantooda gaarka ah ay ka hormariyaan danta qaranka. intaas oo kaliya kuma koobna tababarada ciidanka qaranka ee Soomaaliya ay helayaan. dhinaca kale waxaa jira tababar loogu soo xiray xerada Turkisom ee magaalada Muqdisho saraakiil iyo saraakiil xigeenno ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyada oo uu tababarka u soo xiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana ciidamadaasi muddo 2 sano lagu diyaarinayay dugsiga tababarka ciidamada ee Turkisom ee dowladda Turkiga ay ka hirgelisay magaalada Muqdisho. madaxweynaha oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku biiraan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyaga oo ka go'an tahay in ay dalkooda ay ka difaacaan koox kasta oo cadow ku ah sidoo hadalka u dhigay. wuxuuna hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay dib u dhiska qalabeynta iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si loo helo buu yiri ciidan Soomaaliyeed oo si buuxda ula wareega sugidda ammaanka dalka Soomaaliya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga dadaalka ay ku bixinayaan in saraakiishan lagu carbiyo dalka gudihiisa. waxa uuna xusay in xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya uu yahay mid ku dhisan walaaltinimo iyo saaxiibtinimo. intaasi kuma eka dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee dalka Soomaaliya oo waxaa jira ciidamo hadda tababar ku qaadanaya dalka dibadiisa iyo gudihiisa. waxaa kaloo jira ciidamo hadda ku sugan magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga kuwaas oo qayb ka noqonaya xuduudaha xoogga leh ee ciidanka qalabka sida ee dalka Soomaaliya. haddaba dhoolatuska xafladii qalinjabinta ee dafcaddii labaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu tababaray magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga oo tababarkoodii adkaa si guul leh loogu soo gabagabeeyay ayaa markii ay soo gaareen Muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waxaa ku soo dhaweeyay ciidan iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo wasiiro. ciidanka soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa muddo 2 sano ah waxa ay tababar ku qaadanayeen dalka Turkiga waxaana jiray dufcado kale oo iyagu ka soo baxay dugsiga Turkisom ee magaalada Muqdisho iyo xarumo kale kuwaas oo hadda ku howlan amniga dalka Soomaaliya. ciidankii dhawaan uu tababaray dowladda Turkiga ayaa waxa ay hadda howlgallo ay ka sameynayaan gudaha dalka Soomaaliya. waxa aan u mahadcelinayaa Cabdullaahi Ruush oo warbixintan soo diyaariyay.